waxa uu soo doontay shaqadiisana waxa ay noqotay daanyarnimo. Asalaamu calaykum, kusoo dhowaada barnaamijkeena maanta. Intaan u gudaganin barnaamijkeena maanta, fadlan nagu soo biir oo subscribe sar janaalkeena si aad ula socoto barnaamijyadeena xiga. waa qormo xiiso badan oo uu qoray Sayid Maxamed Cumar Daraawiish. maalin maalmaha ka mid ah ayaa hay-ad degan qaaradda Afrika waxa ay soo bandhigtay shaqo ka bannaan hay-adda. markiiba shaqada waxaa soo codsaday dad aad u badan oo ka badan inta shaqaale ah oo hay-adda ay doonaysay. hay-addii waxa ay go'aansatay in ay imtixaan ka qaado dadkii soo codsaday shaqada si loo helo halka shaqaale ee loo baahan yahay. markii uu dhammaaday imtixaankii, hay-adda waxa ay shaacisay shakhsigii ku guulaystay imtixaanka, kaas oo ahay nin aad u foolxun. waxaana lagu wargeliyey in uu tago xafiiska si loogu sheego shaqadiisa waxa ay tahay. waa uu soo baxay asigoo aad u faraxsan. waxa uuna yimaaday xafiiska, waxaana loo soo dhoweeyey si aan innaba caadi ahayn. markiina waxa uu yimid madaxdii ugu sarraysa hay-adda. nin ka tirsan madaxdii ayaa ku yidhi, mudane, markii aan aragnay muuqaaga iyo aqoontaada, waxaan kaa codsanaynaa in aad ka shaqayso beerta xayawaanka oo hay-addu ay leedahay. sababtoo ah dalxiisayaasha mar walba waxa ayna weydiiyaan hal xayawaan, xayawaankaas oo ah daanyarka loo yaqaano gorillaha, oo anagana aan haysanin. adigana waxaan kuugu soo xulanay maadaama aad u eg tahay daanyarkaas in aad noo matasho. kii aad ayaa u naxay, waxa uuna ku qeyliyey madaxdii meesha joogtay asigoona ku dhahay, sidee ii leedihiin anigoo ah bini'aadam daanyar noqo? oo waxaa imtixaan ku soo gelayay ma waxay ahaayeen in aan daanyar noqdo? buuq iyo qaylo fara badan kadib, ninkii waxaa loo ballanqaaday in la sii doono mushaar aad u badan. sidaas ayuunu ku oggolaaday shaqadii, maadaama dalkiis ay ka jirtay shaqo la'aan aad u baahsan. waxaana loo sheegay inta uu shaqada ku jiro in uu xiran doono dhar loo ekeysiiyey dhogorta gorillaha, cidna aysan ogaa doonin shaqadiisa waxa ay tahay. asigoona fiidkii u hoyaadi doono xaafaddiisa. dalxiisayaashiina maysan tabin daanyeerka gorillaha, oo waxay u haystaanba in uu yahay daanyeerkii gorillaha. maalin walbana sidaas ayaa loogu soo daawasho tegi jiray. mar walbana dalxiisayaasha waxay u tuuri jireen moos, asigana waa uu cuni jiray. muusan dareemsii jirinba in uu meeshan joogin daanyeerka gorillaha. sidaas ku socotaba, asiga oo ku guda jira shaqadiisa gorillaha ayuu ka war helay maalin maalmaha ka mid ah liibaax in yar u soo jira. waa uu cabsaday, aad ayuuna u qeeliyey, waa uuna cararay asiga oo qaadi lah dharkii culeyska badnaa ee loo ekeysiiyey dhogorta gorillaha, taas oo keentay in uu la kufo culayska dharka uu watay. asigoo niyadda iska dhahaya, haddii maanta liibaaxaas uu ku cuno, lama dhihi doono liibaax baa qof cunay, ee waxaa la dhihi doonaa liibaax baa gorillo cunay. liibaaxii ayaase dul istaagay, waxa uuna ku dhahay, war nacasyow, maxaad la qaylinaysaa? ninkii waa uuba ka sii daray oo waa uuba sii qeeliyey, asiga oo la yaaban liibaaxan hadlaya. liibaaxii inta uu aad u yaab ayuu ku yidhi, war naga aamus, anigaba waxaan ahay aqoon-yaan shaqo waayay oo liibaax matalaya. waxa aad u malaynayso in ay yihiin xayawaano ee beerta ku jira ma ahan xayawaano, ee waa aqoonyaano shaqo waayay. hay-adaha qaar dadka Afrikaanta ah waxay ula dhaqmaan si ka baxsan bani'aadanimada, ayagoona ka faa'iidaysanaya shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta qaaradda madow. intaan ayaa kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeena maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ha 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 ha